الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halkani waa Sky News TV haddaba daawadayaal caawa barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo daahfuray wejigii labaad ee sanduuqa horumarinta taas oo ay Soomaaliland ka taageeraan wadamo ay ka mid yihiin Denmark, Ingiriiska. Haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isagoo ka hadlaya furitaanka wejiga labaad ee mashruucan waxa uu yiri aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo daahfurka wejiga labaad مشروع SDF maanta la daafurayo 2016 ahayd markii la daafuray wajigii koobaad halkan uu ku daafuray madaxweynihii hore Soomaaliland Madaxweyne Axmed Maxamuud Silayo oo ahaa madaxweynihii xilligaa joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha ka soo qayb galay mashruucan taageerada sida tooska asluuqa ugu soo shubay oo hirgeliyay ka qayb qaadashada horumarinta Soomaaliland mashruucyo aad iyo aad waxtar u ah oo kuwii halkan laga sheegay oo ugu waaweynayeen isbitaalka Ceergaawo iyo isbitaalka Laascaanood iyo mashaariicda kale halkan laga tilmaamayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan dowladihii arrintan ka hawlgalay ee ka mid yihiin dowladda Ingiriiska, dowladda Denmark, dowladda Netherlands, dowladahaas oo kaalin weyn oo muuqata ka qaatay horumarinta. Waxaan ugu baaqi lahaa oo jecelahay cid kasta oo taageeraysa Soomaaliland oo doonaysa inay ka qayb qaato horumarinteeda anagoo ugu mahadnaqayna inay ka soo qayb galaan sanduuqan SDF oo noqday mid la shirabay meedal wanaagsan keenay lagu guuleystay yareeyay kharash badan oo ku baxayay lacagaha mari jiray beera badan oo ay soo martay lacagtii oo NGO iyo xafiis wareegana soo yareeyay oo u faa'iideeyay dadka ay hawsha gaari lahayd waxayna tahay taas ay ku habboon tahay in laga wada qayb galo dowladaha kalena si cashuur bixiyayaasha wadamadooda ee taageera Soomaaliland ay lacagtoodu iyadoo oo muglaha waxtaraysa u soo gaadho halkii ay u talagaleen inay dadku taageeraan dadweynaha Soomaaliland taana waa ku baaqayaa waa ku dhiirigelinayaa jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku talagashay in ay saxdo qorshaheeda horumarineed ee dalka xukuumadda waxaa ka go'an in ay u guurto dhinaca maamul wanaagga yaraysan dhaliiraha ka yimaada habka dhaqaalaha loo maamulo iyada oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyaddu oo uu aad ugu dadaalay inay hirgalo mashruuca maamul wanaagga iyo maaraynta dhaqaalaha waxaan ku dadaalaynaa inaan xoojino maamulka mashaariicda meel heer wanaagsan aanu ka gaadhay oo dowladda Soomaaliland wasaaradooda badankooda ay wasaaradu ka adag yihiin mashruuca sidii loogu talagalay inay u hirgeliyaan iyaga oo la shaqeynaya hay'adaha maalgeliyay ixtiraam siinaya cid kasta oo taageertay waxa kale oo naga go'an dowlad ahaan in mashaariicda horumarineed ee Soomaaliland lagu taageerayo dhammaantood ay maraan wadadii loogu talagalay oo ay xagga dowladda Soomaaliland wax dheer ka imanin haday dhaqaalaha tahay iyo haday maamulka tahay waxa kale oo doonayaa inaan u cadayno hay'adaha taageerada dowladda taageera inaan doonayno wada shaqaynteena inay ahaato mid daahfuran oo labada dhinac arki karaan sida ay hawshaas u socoto maamul ahaan iyo dhaqaale ahaan sidaa darteed dhawaan waxaan soo saaray tilmaamayaal ama directives habka aynu wada shaqeynayno oo aanu waafajinay xeerka Soomaaliland iyo dastuurkooda kuna ixtiraamay inaanu dhowro xeerarka hay'adaha caalamiga ah ama international beel wada shaqeeya anagoo ixtiraamayna laakiin waxaan soo saaray directives aanu isleenahay waa sida ugu habboon ee daahfuraan iyo efficiency yani waxay la qabtay hawlgelin in lagu helo wadada loo marayana tahay waa jiraan hay'ado ama dowlado ka soo bixiyay faallo oo meelaha qaarkood dareemaan ka qabna diyaar baan u nahay
inaynu isla garanno wixii aad dhibsateen ee ama international ku xadgudbaya ama idinka xuquuqdina waxyeelaya inaynu ka wada hadalno sidaas oo kale waxaanu ka rabnaa hay-adda ama dowladda aan iskaashiga leenahay inay iyana ixtiraamto xeerka iyaga iyo dowladnimadeeda waxaa jirtay in badan oo sanado badan ah oo dalku kula marxalad soo marayay iyo hay-adaha taageerada kala taageeraba inay taageerada laftoodu marar badan ku dhacaysay gacmo aan saxayn wadadaala lalahaa kolba meel baa laga soo bilaabayay waxa weeye meeshay deeq maraysaa waa inay isla xisaabtan iyo dul socdaata tabaayunkaan soo saarayna intaas baan uga jeeday aad iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa dowladaha sanduuqa furay ee nagu taageeray aad baan soo roonaya mashruuca labaad iyo intii ka shaqaysa iyo maamulkoodaba waxaan inoo rajaynayaa inay nagoo wada shaqayno ay mashaariicda iminka halkaa lagu qorsheyna ay soo doogi karaan inaguna aynu wada shaqayn wanaagsan oo hufan waan ku celinayaa hufan oo transparent